fadlan aabbo waan ku baryayaa ha iga dilin wiilkayga. Aabbahay waxa igu dhahay, hal bil ayaan kugu qabanayaa, haddii aad ku soo noqon weydo bisha soona heli weydo waan dilayaa wiilkaaga. Anigu guriga ayaan ka soo baxay. Wakhtigaas waxaan ahaa mid aad u murugaysan. Waxaan ka cabsanayay xaaskayga iyo ilmahayga yar inuu aabbahay dilo, isla markaasna waxaan raadinayay halka la ii tilmaamay. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhowaada asxaabtayda qiimaha badan. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Maanta waxaan idinka sheekayn doonaa qisadada qaybtii 5aad. Anigu waxaan ahay Axmed. Waxay inoo marisay qisadeena qaybtii hore aniga oo guursaday Xamda, isla markaasna aroos aad u qurux badan dhiganay. Waxay qaaday Xamdi uurkii ugu horeeyay oo aad baan ugu faraxsanayn. Laakiinse uurka waxaa diidanay ayeeday, waxayna ku dhahday waa inaad iska soo ridaa ilmahan sida ugu dhaqsiyaha badan. Aniguna waan ka diidnay, laakiinse ayeeday waxay dhahday waxaan idin sheegi doonaa. Waxaan ku dhahay markii la yimaaday miiska cashada ayay hayeen noo sheeg sirta ku duugan inay Xamdi ilmaha iska soo rido. Maxaa dhacay? Ilmihii ugu horeeyay weeyaan. Ayeeday waxay dhahday waxaa jira waxaydaan ogeyn. Hadda ayaan idin sheegayaa. Qof kasta oo ka mid ah qoyskeena ilmihiisa ugu horeeya waxa uu noqdaa bahal. Anagu waanu naxno waxaan dhahnay ayay ma noo sheegi kartaa sirta ka dambaysa sababtaas. Ayeeday intay qaylisa ayay dhahday waxani waa sixir, maxaa yeelay wax kasta hore ayay u dhaceen. Anigu waxaan ku dhahay ayay ma noo sheegi kartaa ma la hubo arrintaas. Waxay dhahday waqti hore awowga waxa uu guursaday gabadh saaxirada, isla markaasna wax awlaad ma aysan dhalin. Gabadhii saaxirada ahayd markay aragtay inay bilaa awlaad tahay kaynta ayay tagtay, isla markaana waxay soo kaxaystay xayawaan waxayna ku tuurtay sixirkeega. Waxa uu noqday qof sida adeerka oo kale. Awowga arrintaa waa uu diidanaa, laakiinse waa uu ku qasbanaa saaxirada awgeed. Awowga waxaa loo diray habeenada ka mid ah lo, isla markaasna loda ayuu ilaalinayay. Waa uu daalay waqti badan ayuuna la joogay loda. Waxa uu islahay iska naso, gurigiisa ayuu iska yimaaday. haweeneyda saaxirada awowga mar walba waxay ku oran jirtay aniga ayaa dhalay waxan, laakiinse awowga wuu garanayay waxaan inuuna bani aadam ahayn, laakiinse waa ay ka dhaadhicisay. habeenkaa uu seexday lodii ayuu bahalkii u galay, bacdeen lodii oo dhan buu wada cunay. awowga waa uu soo kacay isagoo yaaban. waxuu yimaaday meeshii ay lodu joogtay, waxuuna ku arkay bahalkii ay haweeneydan saaxirada soo kaxaystay. waa uu yaabay waxuuna dilay bahalkii. isla marka uu dilay, haweeneydii aad ayay u xanaaqday. waxay dhahday qof kastoo ka mid ah qoyskiina ilmaha ugu horeeya wuxuu noqon doonaa bahal. eedadaa ilmihii ugu horeeyay dhashay bahal ayuu noqday. aabbaha ilmihii ugu horeeyay uu dhashay bahal ayuu noqday. awowgaana waad garanaysaa adeerkaa bahal ayuu ahaa. acuudu billaah, waxay tahay meeshan wada bahalkii. ayeeday waxay dhahday wax kasta waan idiin sheegay, ilmahana waa ilmihiinii ugu horeeyey, wuxuu noqon doonaa bahal. haddii aad iska soo turisaan iyo haddii kaleba idinka ayay jirtaa, anigu wax kasta waan idiin sheegay. isla markaasna arrintaa markaa aanu maqlnay annagu waanu wada tashan anigii Xamdi. waxaan isweydiinay si lagu ogaan karaa ilmahan waxa uu yahay. Xamdi waxay dhahday dhakhtarka ayaanu aadaynaa, isaga ayaanu wax kasta noo soo kala cadayn doonaa. waan isku raacnay oo waxaan ku dhahay bari ayaan tegaynaa dhakhtarka.
isla markaa aroortii la gaadhay dhakhtarka ayaanu tagnay baaritaano fara badan ayaa lagu sameeyey xamda laakiinse waxba kuma aysan sheegin dhakhaatiirtu waxay dhaheen inantan caloosheeda waxba kuma jiraan annagu waan yaabnay arrintaana waa u qaadan weynay baaritaano fara badan oo la sameeyey nasiib daro waxba way noo sheegi waayeen dhakhaatiirtu anigii xamda waan iskaga soo baxnay dhakhtarkii isla markaasna xamda waxay dhahday arrintan rabbi oo keliya ayaan u daynaynaa waxaana waa mucjiso isla markaasna waxaan ku dhahay haa waa runtaa rabbi ayaana siin doona wax wanaagsan oo ka khayr badan waxa la sheegayo waxaa la gaaray maalinta ay dhali lahayd xamda isla markaasna dhakhtarka ayaa loola cararay waxaa la geliyey qolka ay ku umulaan dumarku isla markaa annagu waxaan kuwa suga waxaanu ka ruursareen talow muxuu noqon doonaa ilmuhu eedadii ayaa timida waxay dhahday ma la kala ogaado ilmuhu waxuu yahay anigu waxaan ku dhahay maya weli lama kala ogaan si kaysta waxaa u soo baxday dhakhtaradda waxayna dhahday iyadoo naxsan anigu ma arag weligay ilmahan oo kale anigu waan wada naxnoo waanu kacnay waxaan ku dhahay dhakhtaradda xaaskaygu ma wanaagsan tahay waxay dhahday haa xaaskaagu waa wanaagsan tahay haddana waad u geli kartaan isla markaasna waan u soo galnay markaan arkay ilmaha ay xamda haysta aad ayaan u naxay xamda waxay dhahday ilmahan yar ee miskiinka ay leeyihiin waa la dilayaa eedadee ayaa hadasho waxay dhahday haa waa la dilayaa ilmahan haddii la dili waayo adiga ugu dilayaa markuu weynaado annagu aad ayaan u naxna waxaan dhahnay eedadaa maxay ka hadlaysaa xamda ayaa hadasho waxay dhahday maya ma dhici karto ilmahaygana lagama dili karo si kastay ahaataba aniga iyo axmed baa ka tashan doona arrintaanu yeelin doono isla markaasna qof ayaa cod dheer ku dhahay waa la dilayaa ilmahan ta una weynaanin anigu waa naxnay isla markaasna aabbahay ayuu noqday anigu aabbahay ayaan u tagay waxaan ku dhahay aabbo maxaa intan oo dhan nooga maqnayd maxaad nooga tagtay aabbahay waxuu dhahay anigu waa idinka tegey laakiinse nasiib daro ma aanan soo noqon laakiin wax walba waan la socday hal ayaan la socday wax kastoo samaynayseen anigu aabbahay waxaan ku dhahay maxaad sidaa u samaysay aabba mayaadna nacday ayar ayaad naga tagtay nooma aadan soo noqonin aabbahay waxuu dhahay wiilkii waxuma aysan dhicin eedada ayaa hadasho waxay dhahday wiilkan waa la dilayaa sow ma ahan hadda ilaa haddii weynaado haddii kala bahal ayuu noqonayaa xamda ayaa hadasho waxay dhahday maya la dili maayo wiilkayga cid iga dili kartaana ma jirto aydii ayaa wakhtigaas baxday dibadda ayayna aaday aabbahay ayaa ka daba tegay isagoo la hadlaya waxau ku lahaa hooyo isug waxbaan kuu sheegayaa laakiinse aydee waxay ahayd mid aanan dhegaysanin way iska sii socotay aabbahay waa uu yaabay wuxuu dhahay talow hooyadaa maxaad ku samaysay maxay sidoo dhan kaaga xanaaqsan tahay anigu wakhtigaas waxaan la hadlay xaaskayga waxaan ku dhahay xaaskaygaa ka warwarin waxba xal ayaan raadinaynaa ilmaheenna waan badbaadsanaynaa waxay dhahday si kastay kuu qaataba waa inaad xal noo raadisaa si uu ilmaheenna noogu badbaado anigu wakhtigaas ilmaha yar ayaan ka qaaday xaaskayga waxa uu ahaa ilmaha yari mid aad u qurux badan maasha allah isla markaasna eedadii waxaan ku dhahay waxaan raadinayaa xal naagtiina sixirtayaan raadinayaa wax kastana way hagaagayaan aabbahay intuu aad u qosluu dhahay maba noolaba taasi anigu waxaan ku dhahay si kastay noqotaba xal ayaan u raadsanayaa wiilkayga lagamana dili karo aabbahay waxuu dhahay waad raadsan kartaa waxaad doonto laakiinse inaadan soo helin ayay la tahay aydii ayaan u taho waxaan doonayay inay talay siiso waxay ku dhahday eeday xitaa hadday dhammatay naagtaasi waxaa jira sheekhaasa u tegi doontaa isaga ayaana xal ku raadin doona aydey waxay ii tilmaamtay goobta uu joogay sheekhu isla markaasna waan macaslaameeyey xaaskayga ayaan u tegay waana soo macaslaameeyey aad ayaan u naxsanayn wakhtigaas eedadii ayaan u yimaado waxaan ku dhahay eeddi waxaan kaa rabaa inaad xaaskayga iyo ilmahayga iisii xanaanayso intaan maqanahay eedii ayaa dhahday wiilkayga waxba ha ka warwarin wax kasta way hagaagayaan ilmahaaga yar xaaskaagana annaga ayay ammaano nagu yihiin wakhtigaas aabbaha ayaan u yimaado waxaan ku dhahay aabbo fadla waan ku barayaa ha iga sii dilay ilmahayga waxba ha sii gaadhsin inta aan soo noqonayo waxuu dhahay aabbahay waa si wanaagsan wiilkaygii laakiinse wakhti ayaan kuu qabanayaa hal bil haddii aad ku soo noqon weydo ku soo heli weydo xalka aad raadinayso waxaan dili doonaa wiilkaaga taasina waa ballan anigu waxaan ku dhahay waayahay waan soo noqonayaa aabbo anigu waan ka soo baxay wakhtigaas waxaana raadinayay xal aad ayaan u naxsanaa waxaan ka warwarsanaa xaaskayga iyo ilmahayga yar intaad maqanta maa la dili doonaa waxaan kaloo isweydiinayay sheekha xal maa heli doonaa waxaa kaloo isweydiinayay naagta saaxiradda ma nooshahay waxaan kaloo isweydiinayay sida wax u dhacayaan wakhtigaas anigu waxaan ahaa mid aad u daalan waxaan soo gaadhay goobta laysoo tilmaamay isla markaasna waxaan raadiyey guriguu deganaa sheekhu waxaan helay guriguu deganaa sheekhu waana soo fadhiistay waxaan uga sheekayay sheekha wax walboo jira isla markaasna waxaan ka codsaday inuu iga caawiyo arrintaa
laakiinse nasiib darro sheekhu waxau dhahay waan ka xumay wiilkaygiiyow arrintaas anigu waxba kama qaban karo kuma caawin karo laakiinse hal talo ayaan ku siinayaa waxaan ku dhahay maxay tahay taladaadu sheekhow waxau dhahay waa inaad dishaa wiilka si aad u badbaadiso xaaskaaga iyo noloshaada dambe maxaa yeelay haddii aad disho wiilkaas awlaad kale ayuu rabbi ku siin doonaa waxna ha ka warwarin maxaa yeelay ilaahay waa mid deeqsiya carruur fara badan ayuuna ku siin doonaa waa inaad dishaa wiilkaa sidaas darteed anigu wakhtigaas waxaan ahaa mid rajo dhigay waxaanan ka quustay nolosha wiilkayga islamarkaasna waan soo dhaqaajiyey gurigii ayaa yimaaday xaaskayga ayaa ila hadasho waxay dhahday xal ma noo soo heshay anigu waan aamusnaa waxaan ku hadlana ma aanan garanayn waxaan dhahay waa la dilayaa wiilkayga aabbo dil wiilkayga waa yaabeen waa naxeen aabbay waxuu dhahay xal maa soo weyday haa waan soo waayey islamarkaas anigu waxaan ku soo xidhay qol anigu wakhtigaas waxaan ahay mid aad u ooyaya waxaan maqlaya xaaska qayladeeda iyadoo leh wiilkayga hayga dilna waan barayaa laakiinse aabbahay waxuu dilay wiilkaygii asxaabtayda qiimaha badan xanuun badanna wiilkaaga ugu horreeya oo lagaa dilay anigu aad ayaan u naxsanaa waan ooyey qisadayda halkaasay ku soo dhammaantay asxaabtayda sharafta badan anigu hadda waxaan jiraa 54 sano waxaana haystaa 5 ciyaala anigu waxaan ahay Axmed qisadeeduna halkaasay ku soo dhammaantay waxaa laga yaabaa inay qisadu ka cabsi gelisay ama ay ku xiiso gelisay waad ku maasan tahay si aad ugu xidhnayd qisadeeda oo dhammaystiran haddii aadan weli soo daawan qaybaha hore kanaalka ayaad ka daawan kartaa 5 qayboodba waxaad isku diyaarisaan bilowga qisada cusub waxaan idiga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan maca salaama